kulanka wada tashiga maamulka iyo bulshada oo ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka dhacay xarunta wacyigelinta bulshada ee degmadaasi. Kulankan oo sidoo kale lagu xusiyay sanad guuladii labaad ee ka soo wareegtay markii degmadaasi laga xoreeyay kooxdii dhiig-yaabka ahayd ee Al-Shabaab, kuwa oo muddo 15 sano dhibaato ku hayay bulshada degmadaasi balse haatan ku naaloonaya nacawda dowladnimo. kulankan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha dowlad goboleedka Galmudug, maamulka degmada Xaradheere, saraakiisha ciidanka, odayaasha deegaanka iyo bulshada qaybahooda kala duwan. Munaasabadan oo ahayd mid lagu dhisayay xiriirka ka dhaxeeya dowladda iyo bulshada, iyadoo la xusayo guulaha la gaaray kadib xoreyntii degmada iyo dadaaladii socday ee lagu xoojinayo amniga, ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada Xaradheere Casayr Ibraahim Mataan. xaqiiqada inaan soo gudubno dadka reer Xaradheere alla ka sokow waxay kaga mahad celinayaan guushan taariikhiga ah ee muddada 3 sano hadda u bilaabatay ay kaga mahad celinayaan ciidanka xaquudirirka iyo kuwa deegaanka iyo odayaasha sida aan sheegay. maamulkii degmadan hore u joogay iyo kuwa hadda joogaba kaalinta ay ka qaateen oo shariifka ah. dadka reer Xaradheere caawa waxa iga muuqata isku tashi fara badan in ay muddadii 3 sano ah oo caawa ay kowda ka tahay inaysan gadaashooda fiirinin ay hortooda fiiriyeen. reer Xaradheere waxa lagu yaqaanaa wax wada qabsi, walaalnimo, ehelnimo, isku duubni iyo in qofka kale uga kaco meesha uu ku fadhiyo. ayadaasaan xoojinaynaa, ayadaasaan ku dhaqmi doonaa, ayadaasaan wadi doonaa. agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta Galmudug, Cabdirasaaq Cabdullaahi Sheekdoon, ayaa isna ka warbixiyay qorshayaasha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ee ku aadan horumarinta maamulka iyo awoodsiinta bulshada. kulankan wuxuu qayb ka yahay kulamada ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Galmudug ee hore u qaban jirtay degmada Xaradheere. waxaana kulan daaran 2 munaasabadood. munaasabadda koowaad oo ah la tashiga bulshada degmada Xaradheere iyo deegaanada hoostaga, iyo munaasabadda labaad oo ah xafladeedka u dabaaldega sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay maalinkii cadowga khawaarijta laga xoreeyay degmada Facaweyn ee degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. anigu ku hadlay afka dowladda si guud afka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Galmudug waxaan ugu hambalyeelayaa munaasabadda qaaliga ah ee caawa. qaar ka mid ah saraakiishii xoogga dalka ee ku sugan degmada Xaradheere ayaa sheegay in ciidamadu ay ka go'an tahay ilaalinta amniga degmada, waxayna soo jeediyeen in bulshadu ay ka qayb noqdaan dadaalada amniga si loo gaaro nabadgelyo waarta. ciidan Soomaaliyeed aan nahay, ciidanka beelahana waan nahay. annaga inta cadowgu oo wadanka Soomaaliya meel ka mid ah uu joogo, meel kale ku koobnaan mayno, horaan u soconaynaa mar dhow haddii Alla idmo. kulankan ayaa sidoo kale waxaa iyaguna ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybahooda kala duwan, kuwaasi oo muujiyay taageerada iyo dadaalada dowladda, waxayna ku baaqeen in la xoojiyo wada shaqaynta bulshada iyo hay'adaha dawliga. waxaa kale ay ka hadleen doorka ay bulshadu ku leedahay xasiloonida iyo amniga degmada iyo sidoo kale horumarka ka jira degmada Xaradheere. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.